horta marka ugu horeysa waxaan balyeynaya aad iyo aad ayaan u bogaadinaya Cabdulwahaab iyo teamkiisa ee aasay madasha Hayaan Heritage ama maaragtay Hayaan dhaqan heritage waxay noqonaysaa Hayaan hiddo miyay noqonaysaa af Soomaali hadii la dhaho okay arinta luqadda issue way sida hadda Faadumo sheegaysay laakiin mararka qaarkood luqadda cunsur muhiim ah oo kamid ah dhaqanka iyo taariikhda iyo jiritaanka iyo maaragtay ummadnimada dadka ay kamid tahay laakiin mararka qaar hadii oo qofka taariikhdiisa iyo jiritaankiisa iyo identitygiisa uu dhisan yahay oo u hagaajisan yahay mararka qaarkood luqadda caayiq ma noqon karto mararka qaarkood waxa laga yaabaa dad aan af Soomaaliga si fiican ugu hadli karin oo ama Yurubtaas ama Mareykanka joogan in ay ka Soomaalisan yihiin marka laga hadlayo in terms of identity iyo culture iyo dhaqanka iyo diinta marka la dhaho dad laga yaabo in af Soomaaliga si fiican oo qurux badan uga hadlaan marka dhowr qodob aan rabaa inaan muhiimadda ay leedahay aan tilmaamo anigoo raba inaan يعني maaragtay heritage Hayaan Heritage iyo shaqada ay qabanayso culayska ay leedahay iyo muhiimadda noo wada leedahay tilmaamo horta si guud annaka Soomaaliya hadaan nahay shineemada aad u maanan maaragtay aqoonin oo taariikhdeena wax badan kuma jirto laakiin waxa aad u naqanaa theater ama masrax oo labaduba macnaha sheeko sameyn iyo sheeko gudbin ama storytelling ku dhex jiro Soomaalida waxay maaragtay aad u taqaanay waliba mararka qaarkood dadka qaar laga yaabo inay ka doorbidaan ama ka xiiseeyaan masraxa inay ka xiiseeyaan shineemada because masraxa wuxuu leeyahay direct ama interaction toos uu leeyahay qofkii dadkii hortaada ku jilayaan warkii meesha ku akhrinayaan interaction toos uu qofka la leeyahay beenama laga yaabo shineemadan inay maaragtay inuu telefishinka ama wax la soo duubay oo aad loo qurxiyay ama siyaabo kala duwan loo sameeyay inuu interaction la sameeyo marka waxaan rabaa hal qodob oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in hay'ad sidaan oo kale la sameeyo ummadan ay ku baraarugto sawraca iyo maaragtay jiraalka taariikheed ee markii la dhisay Soomaalida hadda dawladnimadeena markii la dhisay anaga Soomaaliya 60 iyo dhowr sano ka hor waxa ugu muhiimsan horta markii ummadnimo la sameeynayo waxa kamid ah yani tiirarka ugu waaweyn ummadnimada ay leedahay waxa kamid ah in dadka ay yeeshaan taariikh midaysan dhaqan diin iyo maaragtay waa maaragtay history culture iyo maaragtay religion iyo maaragtay aspiration markaas midaysan oo dadkaas ay wada yeelanayaan ama wadankaas aspirationka loo dhisay ama hiigsiga wadankaas uu leeyahay oo kale to anaga waxa noogu jira meesha Soomaali weyn in Soomaaliya qaybaha maqan Soomaaliyada maaragtay dawladda noqotay lagu soo daro sida la socotiin marka Soomaalida wadan aad u balaaran oo aad u weyn degan tahay dhaqan ahaan way ku kala duwan yihiin dhaqan aad qani ah ayaan leenahay meeshaas waxa looga baahan yahay masraxi iyo shineemadii si dhaqankii Soomaalida ay maaragtay hal dhaqan oo maaragtay yani qolo kala dhaqankeeda qaadanaysa malaha laakiin isfaham iyo maaragtay in qofka Soomaaliga meel walba joogo dhaqanka Soomaaliga kala leeyahay dhaqankiisa yahay ay tahay inuu barto ay tahay inuu ku faano ay tahay inuu maaragtay qayb ka noqdo sidii uu u jiri lahaa oo maaragtay mid soo jireena oo la sii gudbiyo oo noqdo macna marka qayb weyn ay ka tahay marka sineemada qayb weyn ay ka noqon kartaa in national identity markii la dhisaayo inay contribution sax ku yeelato oo dadka markaas Soomaalida ah ay jooga ee dawladnimada wada yeelanaya inay helaan sheeko wadareed ama maaragtay sheeko midaysan oo ama dawladnimadii sida loo arkayo ku saabsan ama dhaqankii valueska dadkaas ay lahaayeen ku saabsan ama xataa yani markii sineemada la sameeyay qayb weyn waxa ka diinta qayb weyn ka yani ahdaafta sineemada ama yani loo sameeyo markii qaarkood waxyaabo dhaqamo diin la xiriira lagu gudbiyaa values iyo culture dad leeyihiin lagu gudbiyaa haddii maanta casharkan aad qaadan doontaan iyo waa falanqeyn doontaan sineemada ugu weyn maaragtay hadda jirta Hollywood maxay gudbisaa maxaa waay mawaadiicda ugu weyn every film arkaysid in ka aragtid laga yaabo yani iyo tusaale ahaan mararka qaarkood filmaanta iyo hadafka laga leeyahay taariikhda wadamada iyo dhaqanka markii laga soo tago waa soft power international diplomacy-ga waxyaabaha soft power-ka ay dawladaha adeegsadaan ay kamid tahay macna mararka qaarkood filmaan la jilay oo wadamo ay sameeyaan laba wadan inay isku qabsadaan laga yaabo oo ku xanaaqaan because of cultural representation oo filmkaas ku dhex jira macna oo la isku qabsado ama maaragtay marka si guud horta bariga waa looga dheereeyay maxay ahayd sineemadan casriga hadda oo la sameeyay
inkastoo de shineemo aad u weyn ay leeyihiin naftirkooda maaragtay hindida oo Bollywoodka ay maaragtay jirto balse anaka waxa aad noogu sii maaragtay Soomaalida aad u sii taqaanaa oo laga sheekeynaa hadii la dhaho masraxa ama tiyaatarka oo waqtigiisii ugu bilnaa ama waqtigiisii ugu fiicnaa oo rejiimku waagaas joogu adeegsan jiray maaragtay manipulation iyo inuu propagandadiisa iyo jiraalkiisa inuu waana qayb maaragtay qaybaha loo adeegsado tiyaatarka kamida in maaragtay wadamada ama regimeska oo dictatorska ah ay u adeegsadaan censorship iyo inay dadka narrativeska dhaxdooda ku hagaan qofka hadii maaragtay dawladdu markaas joogto ay fahansan tahay ama maaragtay dictatorship ah ama democracy ha ahaato laakiin waa meel ay shacabka iyo dawladdu ku falgalaan oo dawladana fariinteeda ku gudbisan karto mararka qaar koodna tiyaatarka sheekooyin qaar ka dhacwaa la socotiina ayadoo loo shaqeynayo laga dhigayo fariimaha xataa dadkii mu'allifiinta ah ama writerska ahaayo maaragtay qori jiray ay ku dhex gudbin jireen maaragtay fankaas dhexdiisa marka aad iyo aadan maaragtay u bogaadinaya in ay jiraan dad Soomaali kamid ah oo dhalinyaro ah oo waqtigan joogo oo fikirkooda iyo hal abuurkooda gaarsiisan yahay inay maaragtay qaybaha wax lagu gudbiyo oo sheeko wadareedka lagu sameeyo oo national identity lagu dhiso in la soo qaato la falanqeeyo sidee maaragtay dhaqankeena ugu gudbin karnaa sidee Soomaalida maaragtay dhulkan aadka u kala fog degan ay communication ugu sameyn karaan wada xiriir ugu sameyn karaan tusaale ahaan mararka qaarkood riwaayaadka ay ku qoran ama buugaag u qoran ay jiraan tusaale ahaan warsame iyo waasuge sheekadaas macnaa mararka qaarkood clash dhacay laba dhaqana ishirdinaysa laba qof kulmaysa qof reer koonfur waqooyi kulmaaya communication-ka dhaxmaraay iyo isku baranayaan hadii uu jiro wax maado iclaami ah oo hore loo sameeyay aad u fududaanay inay dadka communicate gareeyaan si kasto u kala fog yihiin hadda anaga markii tusaale aan anagoo xamar ku dhalan intaas la soo ekaan markaan Europe tagnay waa noo fududaatay inaan la communicate gareeyno because already anagoo kulmeen cineemooyinkooda fiirsan jiray productionska oo muuqaalada ay sameyn jireen xaafadihii sida hadda uu sheegay jiddi mararka qaarkood Hindi adoonta waxa laga yaabaa inuu si fiican u kala yaqaano meelaha qaarkood train stationada iyo xaafadaha inta isku jiraan iyo waxa soo kale marka muhiim jiddan waaye marka qayb kamida cineemadan hadda waxay kamid tahay barnaamijka weyn ama iclaamka markii media la fiiriyo sectorkaas dhan anaga naga baaba'san oo hadda aqoon iyo aragti ku dhisnayn si guud marka saddex qodob oo ay sameyn jireen media oo sameyn jiray way maqan yihiin macna waxa media oo sameeya education awareness iyo entertainment waxa u maleynaa entertainment-ga hadda waa jirtaa labadoo filim iyo dad badan oo shactareeyaan oo maaragtay dadka qosliyaan iyo comedians iyo way jiraan inkastoo ayada xataa mararka qaar hal abuur ku jirin oo maaragtay dhaqan iyo wax fariin lagu gudbinayo ay jiraan ayadoo entertainment ah oo qosol ah ayaan fariimo lagu gudbiyaa lafteeda ma garatay marka saddexdaasba hadda markaa fiirisid media Soomaalida caamatan markaa fiirisid waxa laga yaabaa inuu faariq yahay oo maado waxbarasho gudbinaynin maado maaragtay wacyigelin ah gudbinaynin maado entertainment ah ama maaragtay madadaalo ah gudbinaynin marka si gaar ah marka in qaybtan kamidka ah maaragtay aad loo fiiriyo oo laga maaragtay doodo laga wada sheekaysto aad iyo aadan u dhiirigelinayaa waa bilow wanaagsan aniga ardaydeedan kamid ahay dadka xiiseeyaan kamid ahay waana kamid ahay maaragtay bahdan insha Allah taala aad iyo aad mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh